يا أخي shirkan ay soo qaban qaabisay hay'adda SWSO iyo wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maalintii labaad ka soconaya magaalada Jowhar waxaa goobta ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle iyo ururada bulshada oo inta badan ay ahaayeen haweenka ku dhaqan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ugu horeen goobta waxaa ka hadashay madaxa hay'adda SWSO Maama Xaliimo Faarax Gudane ayaga oo gobol u fadhiya iyo degmo may nabadda ka shaqeyn karaan mis ayagoo isu yimid isturxaan bixiyay iskhilaaf bixiyay oo midoobay yay samaysan karaan inay nabadda soo celiyaan inaan annaga marka hore toole gabdha ahaan gobol walbo gabdhaha ka maqan gabdhaha duurka kaga jiro kuwa colaysan horta innaga inaanu samaysano inaan gabdhaha naga maqan u gurguurano oo nu soo celino oo istaad walba oo isagu mid noqdo kadibna aan noqono nadwa guud oo gabdhaha Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin aan samaysano oo aan u istaagno nabadda sideedaba haddaan u istaagno nabad waa dhali karnaa waxa waaye waan aragnay maalin meel ka sii baxaysa maalin meel ka sii furdaansamaysa waxaan rabnaa inaan nabadii guud aan dib u soo celino markaan nabad aan helno kootadeena waa helaynaa laakiin horta bal nabadii ka horeysay gabadhii adiga kula midka ee meel ay ku soo marto ma hayso waxaaba laga yaabaa inay qabiil idin ku kala geeyay waxa laga yaabaa nin siyaasi oo dan la inuu idin kala geeyay waxaan rabnaa inaan gabdhaha isku dan noqono isku wixii noqono waayo wiilka dhimanayo iyo gabadha dhimanaysa iyo kan shaqo la'aanta iyo mid aan u doodayna intaba inaga dhalnay maxaa marka aan samaysan karnaa waxaan rabnaa berrito shirka waan soo gabagabaynaynaa shalay odayaashii haweenka qaar ka mid ah la kulanay maanta haweenka iska lahaa maanta haweenka waxaan rabnaa inay ka soo baxaan baaq aan u jeedinayna gabdhaha Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasto ay joogaan inaan annagu waxasan ka shaqeyno oo nabadda ka shaqeyno oo aan isku mid noqono oo kugusan ay noqoto oo gobol walbaba aynu lagu hayno ku tagno ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Saadiye Maxamed Nuur Saadiye Burus ayaa goobta ka hadashay wax badan la hadlay waa la farxay aniga farxadayda didid oo saan igin wulay marka 240 saaka markaan soo baxay ee sukurtayda 40 inay dhacdaan aan aaminsanahay alxamdulillah goor igu dambeysay ma qaan dididkayga on saan hon arko marka alxamdulillah farxadda iyo reynta iyo maaragtay caafimaadkayga maanta aad iyo aad u dareemaa anigana codkayga waxaan ku saacidaa walaashay Xaliimo wasaarad ahaan annagoo codsanayno in degmo walba oo Hirshabelle saan oo kala kulan aan u baahanahay gobasheedana ay noo sameeyaan iyadoo la kaashanaysa hay'adaha caawiya haweenka ama UN ka ahaada ama European ka meeshay doonto la gasho codkeena wasaarad ahaan aan ku biirinaynaa inaan u baahanahay Hirshabelle degmooyinkeedoo dhan gogol saana inaan helno iyo gogol guud oo isku imaad ah annagoo wasaarad ahaan codsigaas qorayno oo ku sameeyay wasiirka maadaama wasiiradda hadda ay ku maqan tahay Turkiga anigoo ku sameeyay waxaan wasaaradda haddii Ilaahay yiraahdo baahida haweenka isku xirka haweenka Hirshabelle guud ahaan Soomaaliya horta loo gudbo laakiin degmo walba in sidaan oo kale ay baahidaas qabto u baahanahayna in nagala saacido aan u diyaarinayno warqado walaasheen ay ku shaqo degi doonto haddii Ilaahay yiraahdo Yusni Maxamed Axmed telefishinka codka bariga Afrika magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle